lamaanayaasha jecel wadaagga ah ee aan weli aqal gelin halis badan ayay u bareeraan mararka qaar. qolkan ku isticmaalay musqusha aada isdhahay macnaha musqusha intaanaba gaarin inta musqusha iridii aan maraa mir ugu dambeysay baan waxa soo isgaatay isticmaashay maxay ahaayeen sunta jiirka. Nimcaan Xuseen Jimcaale waxa uu cabay sunta dooliga kadib markii loo diiday gabar uu jeclaa. naftiisa oo halis ku sugan ayaa la geeyay xalay isbitaalka Kalkaal ee magaalada Muqdisho. go'aankeyga aan isticmaalay waxa ay inaan macnaha jaceylkeyga inaan helo iyo inaan aniga nafteyda u jara maxaa ka dhaxeeya qofkan adduunka ugu jeclaa horteeda macnaha lagu canaadayo dameerku ku siimayo waxna aad qaba karin marka waxaad ka burweysaa sameynaysaa. ayadu marka ku jeceshaa si aad ugu jecleed maadaama isku direysay si kaliya leh arinta ku ay jeceshaa 100%. Nimcaan oo sunta dooliga u cabay gabar uu jeclaa awgeed ayaa waxa la keenay qaybta gargaarka degdega ah ee isbitaalka Kalkaal. qaybta sad u jeedaan gargaarka degdega dhabarkiisa ay ku taalaa xaaladiisu way fiican tahay. Dr. Maxamuud Cabdi Nuur oo ah dhakhtarka kiiska Nimcaan gacanta ku hayay ayaa waxa uu sheegay in xaaladda ee Nimcaan hadda ay fiican tahay lana rajeynayo in uu dib ugu laabto noloshiisii caadiga ahayd iyo qoyskiisii maadaama ay u sameeyeen baxnaano. Nimcaan markii la keenayay horta wuxuu ku jiray xaalad oo wareersanaan laakiin ma gaarsiisanin heer miir daboolan. waqtigu daa waxa soo cabay iyo waqtiga nolol keenay adigu ugu badan saacad camal u dhaxaysay. sidoo noo sheegay markii waxoogaa miirkiis toos noqdana wuxuu noo sheegay inuu wax yar hal mar ka baday 2 jeerna oo ma tagay soo marka daawadii ama suntii jirkiisa saaid uma saameyn guud ma isku yeelan. xaaladii naxdintii oo ka qaaday suntii oo cabaayay iyo wixii oo asaga dham dabaqsanaan gelisamaan wax miir daboolan saaid oo suntiisa jirkiisa saameyn guud saaid isku yeelan. markii nolol keenay waa fiirinay xaaladiisa qiimeynay waa wax kasta laga cabiray dhiigiisa sokortiisa kulli wax kasta waa cabirnay ka bacda xaaladii gargaarka ay markaas faleembooyin iyo wax in la siiyo aan isla markii laga gaaray ka bacda adiga 30 daqiiqo ka bacdi xaaladiisa caadi ah oo hadlay. duruufo badan oo ka haystay Nimcaan dhanka ehelkiisa iyo qaraabada gabadha uu jecel yahay ayuu sheegay inay ku kaliftay inuu naftiisa gooyo sidaasna uu cabay sunta dooliga. waxa walba waxay ka furantaa macnaha qofka ayada xageeda Soomaali ani wax walba diyaar aan la ahay macnaha ayada xageeda macnaha waxaan ka cabsi qabay dhanka waalidka waayo waalidka ayaga isqalaabsan qaarna waa iyo galay qaarna waa ii diidanyahay anigana macnaha wax garaba kama haysto dadka aniga dhashay ka dhibaateynta saakay ma ku fikirtay marka inaad naftaada geyso in qatar diini ah iyo mid bulshada ay leedahay diini maba ku jirta baba hadii diin ay qof adiga murugaysan jacaylka murugaysan tahay diin maba ku soo galaysa qalbigaaga Soomaali. muddooyinkii u dambeeyay Muqdisho iyo gobolada dalka waxaa ku soo badanayay dhalinyarada naftooda halista u geliya arrimaha jacaylka. Maxamed Ciise Koona, Universal TV, Muqdisho.